identity iyo shakhsiyaadka bini aadamku muxuu noqonayaa sidaa awgeed dhalinyarada muslimiinta dambe waxaa ka muuqda madaahir dacfi shakhsiya muuqaallo muujinaya inay shakhsiyadoodii liidato muuqaallo muujinaya muctaqadkooda iyo afkaartooda iyo suluugoodu inay isa soo khilaafayaan waa muuqaalle naxdin leh runtii laakiin waa muuqaalle aanay u fiirsanin markaad aragto shabaab muslimiina oo ku faanaya afkaar cid kale leedahay dhaqamo cid kale leedahay hidde cid kale leedahay maalmo farxadeed oo cid kale leedahay u dabaaldegaya ku faraxsan waa maxay waa qof dawabaan lagu sameeyey waa la maydhay waa maskhi waa qofka shakhsiyaddiisa iyo maydhmaysa laakiin waxay u maydhatay isagoo aan ogeyn war ninka waalan ku daya cidina kuma odhanin laakiin mid waalan oo kale oo xashiishada cabo heesaa la keenay oo codkiisa malaayiin ku dhaliya laakiin raama leh oo hayliya xidhan oo maradu googo-an tahay oo bira xidhan oo dhagaa dalooshaday oo timaa badh xiiray markaasaa lagu yidhi ha huwa shakhsiya laguma odhan waa nin waalane ku daya waxaa lagu yidhi star waa xidigaha dunida xidig ka mida bob marley baa la yidhaha waa xidig bob marley miyaad nin waalan u taqaanin maya waa xidig da isagu ileen wuxuu leeyahay astaamihii la ammaanay oo dhan idan ayuha alikhwa waxaan tilmaamayaa waxa weeyaan inaad shakhsiyad yeelataan shakhsiya qawiya personality inaad qof noqoto damiir leh dadnimo leh qof ah muctaqadkiisa ku faanaya dadnimadiisa ku faanaya waa inay ku faan gelisaa inaad qof muslim oo soomaaliya tahay qof muslim oo soomaaliya inaad tahay waa inay wax lagu faano kuu noqotaa wax laga faano waa inaanay kuu noqonin inaad muslimnimadaada qarsato ama soomaalinimadaada qarsato ama dadnimadaada qarsato waa wax liidinimo ah waa inaad waxaad ku faanaysaa uu noqdo inaad qof muslim oo soomaaliya tahay taasi waxay keensanaysaa marka inaad la mid noqonin kuwuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mararka dacfi iimaanigii uu dhaco ee dadka iimaankooda uu daciifo waxa ku dhaca waxyaabo badan oo isbeddela ah gabadhii muslimadda ahayd oo isa sii beddelaysa inankii muslimka oo isa sii beddelaya dhaqamadiioo la beddelayo waxaasoo dhammi waxay la mid yihiin tuu nebigu leeyahy latatabicanna sunana man kana qablakum waxaad raaci doontaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhaqamadii kuwii idinka horreeyey taako taako iyo dhudhundhudhun baa u raaci doontaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xataa hadday galaan buu nebigu yihi god masalugalay masalugalayda sooma taqaaniin sacagalayda tayaryar baa dabka la yidhaahdaa tan waaweyn waral baa la yidhahdaa wadankeena degan god masalugalay hadday galaan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam latabactumuuhum waa ka dabagelaysaan mitaalkani waxa uu tilmaamayaa shayguu tilmaamayaa waa maxay haddaad si fiican ugu fiirsato godka masalugalay waa meel madow oo yaroo qurhmuun soo maaha meel la gala miyay ti meel wixii gala laga daba gala miyay ti yani wuxuu tilmaamayaa indhala-aan baad waxaa u qaadanaysaa waxaad qaadanaysaa adigoo aan soo marin maxay almisfaat alcaqliya caqligu waa shaandho afkaarta iyo aragtida iyo waxa lagu reebaya lagu shaandheeya muctaqadku waa shaandho waxa lagu sheegaya lagu shaandheeya wixii lagu sheegaba lama qaato wixii tv ka soo baxay iyo wixii jaacad lagu dhigay iyo wixii la sheego dhan lama cabo ee waa la iska safeeyaa marka la safeeyo maxaa soo baxaya wax wax anfaca iyo waxa aan wax anficin waxa aan wax anficin waa la iska daadiyaade shaandhada waxa loo samaystay maxay markaad wax hufaysa maxaa wax loo hufaa waxa aad sileeday markaa ku anfici maayo inaad kaga reebto haddaad shaandhada marin weydo wixii ku soo mara maxaa soo baxaya inaad indhala-aan u liqdo moodo wixii ka yimid war ninka xidigaha tegey haddaad tidhaahda wixii ka yimid dee wax lagu liibaanayo ka war ninka xidigaha tegey ninka xidigaha tegey dhaqankiisa kale haddaan kaaga warramo ninka xidigaha tegey nin baa islaamay markaasay yidhaahdeen markaad muslimka noqotay waa reer galbeedka markaad islaamtay waxyaabay ugu fiicnaa aad aragta maxaa ka mid ah wuxuu yihi wax kaloo dhanba haddaanan helin qurhmuunkaygii baan ka nabad galay buu yidhi ma maqashay qurhmuunkiisuu ka nabad galay
يعني قلباتك ده صحراء الله اسكما ما يروح وراغب يدبده كله بيجستان ولذلك بين كبرك جاء هو ذو بسصورة مركا وحلا مركا عن السلام ماشي النظيفية أرتي دي بابا كان نبات قليل إنسان كقياس يعني هذا واحد مودني بحملنا ليش يجي إنسان طلياني أو حكومة إسلامية يدبلوها دبتنا ويل الجيريا ما نورث أفريقيا كيما مسلمين تابع در كيسة وكيسة در كيسة سرية كيسة هو سبب وجيا مركا وحنا باركا وندنكس عن حار الحيبة والله ما يريد نكي بو يودا وحدنيا وادغو سؤال مكويدين كرهاب يري نيا waxaan ku weydiinaya buu adiga maradaada sariya maradaada hoos waa isku mid ah waxaad samaysaa maradaada sare iyo maradaada hoos waa isku nooc ah waxaad samaysaa marka soo warramay inuu islaam yahay oo tahaara qaato cayn karo yani gaalkani wuxuu ogyahay marada kasta loo keenay kara inay xaar leedahay أحد الدكاترة الصوماليين من دكتور جيولوجي دكتور أيان برلين يونيفرسيتي كل ما مركز أصلا لقى شيء كي دقن كان ممكن بسوح له وحيابا أطلعها بسواح كمدة أكبر بودي بروفيسور كي ماشى ولا قدم بي أيام صراعنا يبودي حاب بتجو دركوا الله بحياة والربيون الضباشة مسا وراء قصة حرادي كنت على الضباط أقول لك دك سبودي ولا كويس كذا وبروفيسور كي ماشى إذا نك تضيع حتى حركة كمان محلو السؤال إن مركز تضيع حتى كل شيء وتمام أنا قلت هذا مركز واضح waxaad u baahan tahay misfaat caqliya inaad mariso misfaat diiniya inaad mariso dhaqamada westernka kaaga imanaya waxa kan ayuha alikhwa shakhsiyada qofka muslimka ee dhabta ah waxa soo saara waa caqiidada rabbaaniga uu qofku garanayo xaq uu socdo wuxuu u nool yahay aakhira inay ka dambayso طريقه la marayo uu garanayo laakiin qofkan muslimka ah ma garanayo waa mutahayyir wuxuu u nooliyay garan maayo wuxuu dunida ka qabanaya garan maayo malhaabu ku jira inuu istawkhiyo markaa maadaama qofku garanayo wuxuu u nooliyay waa inuu ismashquuliyaa boodbood cayaar khamri cab xashad cab bala kala cab iswaal waqtiga lumi haddaadna waqtiga lumiga qaadato ka war adoo muslim waa shakhsiyadda muslimka maaha shakhsiyadda waqtiga lumisa haddaadna qaadato waqtiga saan u lumiya baaniya waqtiga baan ugu tirabato waxaan ku luminaa garaweyn qaadka cun markaa نوع وقيا لا يروح وقت قالوا مية. إحنا لنا وحين هو بهنا إلهي وحلاه ولقد أرسلنا إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامين الرسل صادرين محل صادر الرسل بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان رسول با صادر يبو إلهي سبحانه وتعالى رسول شو حل سور راعي بينات كودي دليل دودي عدينا ينا حق ربك يمادين معجزات يبينات بي وتنشيغ يين الرسولين ارجو الهي صادرين يهين maxay inaga leeyahay soo dhiibay marka الكتاب والميزان بين الهي كتاب بريد ku soo dhiibay iyo miizaan yani kitabku miizaanku ka tirsay miizaanku kitabku ku jira waxa la inagu soo dhiibay sifaadkaasi muwaasiinta aynu nolosho dhan ku qiimeynayno aynu ku kala garanayno maxaa sax maxaa qaldan maxaa la qaadan karaa maxaa la qaadan karin ma qofka muslimka ah dimuqraadiyad baan qaadanay kan baan qaadanay waxaan baan qaadanay waxaan wixiisi ahayn inuu ku faano ma waxay wixiisa inuu tatwiirsado oo horumariyo wax haday naqsani ku jirto oo wixiisa ku faano